nadaafadiina ilaashan weedaan waa dhibaato cidna canshuur ma siisaan waxaan codsanayaa dadka sarahan dhaadheer leh oo laamiyada loo dhisay inay nadaafadda ilaaliyaan oo meesha qurxiyaan bilicda iyo nadaafaddu noloshay qayb ka tahay ninka inta dabaq dhiso hortiisa biyo fadhiyaan oo $200 ku xallin kara waa doqonnimo weyn waxaan codsanayaa in nadaafadda la ilaaliyo si magaalada bilicdeedu ay u soo baxdo mashaariicda qaybaha kale oo ka harayna haddii la haydmo way ku xigi doonaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii ka shaqeeyey kambanigii iyo hay-addii arrintaanna siisay runtii mashruucan dhib badan baa laga soo maray si sahlan laguma helin ilaa xalanaan u tagnay aniga iyo maarkii hore tumey hay-addan noogu dhaga fudeed oo wax naga yeeshan SSF bay ahayd aad baa u mahad celinaya aad iyo aad baa u mahadsantihiin alxamdulilah runtii maanta waxaan isleenahay waa maalin farxada waa maalin u soo hoyatay shacabka deegaanka gaalkacyo degmada gaalkacyo guul waayo waddadii saddexaad baa saaka loo bilaabay oo dhex maraysa xaafadda garsoor oo 270 mitir ah runtii waxaan leeyahay ha ka faa'iidaystay dadka gaalkacyood laakiin waxaan caqabad waxa ah waddo socota oo meel walba tegi karta oo hal guri dhex taagan yahay ama hal dabaka ay dhex taagan tahay oo aan la qaadi karin waxaan ma jiro waqtigii horeeto intaan maamulka soo gelin dadka maamulku shaqo ma qabtaan baan jiro laakiin waxaan ogaaday in reer gaalkacyoodku aysan rabin horumar waayo waddada socota oo la rabo dantiisa ah buusan ka fakaraynba war waddadan gurigan laba jid buu kuu noqonayaa laabi buu kuu noqonayaa lama taaban karo uu leeyahay 1 mitir baan la taaban karin wuxuu leeyahay layga gabo anigu waxaan arkaa nasiib daro waxaan u leeyahay shacabka gaalkacyood galmudug ama buntland ha noqdo ciddii waddo is hortaagta annagoo u wada jirna oo dhammaan rag iyo dumar aan kala harin aan tilaabo ka qaadno waayo waa qof dhibaato ummadda ku soo jiidaya waa qof ummadda aan horumarkeeda rabin intaasaan ku soo koobay bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxaa la dhagax dhigahayaa jidkii weynaa ee isku xirayey oo la bilaabay waddadii garsoor aadaysay ee jidka xamar ku dhacaysay jidka xamar waa laami halkaan 5 star waxaa laga bilaabayaa laamigii kale oo ku dhacaya waddada xamar qofkii maanta laamigaan helaa waa fursad soo martay fursaddu maalin kasta ma soo marto laamigu waa muhiim waa shay bulshada dhan anfacaya waa shay maaragtay guryaha dadka guryaha u dhow dhan anfacaya qof kasta gurigii maanta ugu aadaa qayb u yeelanaya waxaan leeyahay dadka guryaha u dhow laamiga yeeshay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ugu xamdi naqeen fursadda ay heleen ha ka faa'iidaysteen maalin kasta meeshaan ma soo mari doonto fursaddan oo kale dadkii keenay meeshaan oo hawshaan ku soo dhintay oo dhibaatada ka soo marday oo maamulka gobolka iyo maamulka degmada ahaa oo dhibaatada ka soo marayna waxaan leeyahay ajir allaha ka siiyo waxaa weeye waa shay muhiim oo bulshada anfacaya waxaan loo baahan yahay qof kasta oo maamul qabta inuu saa u shaqeeyo waana soo dhowaynaynaa haddaan shacabkii nahay magaalada gaalkacyo aad iyo aad baan soo dhowaynaynaa maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan arko bilicdii magaalada oo aad loo qurxinayo laamiyo la dhisayo waa laamigii wejigii labaad iyo wejigii saddexaad socda ee ah halboolihii magaalada meesha ahayd oo laami laga dhisay waxaan aad ugu mahad celinayaa maamulka iyo hay-addii barnaamijkan fulinaysay aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa waddooyinka harna in la dhammaystiri doono insha allah aad iyo aad ayaa ugu mahad celinayaa waddadan iyo dadka ka shaqaynaya waxaan leedahay khayr badan allaha siiyo oo waddo loo baahan yahay aad iyo aad magaalada muhiim ugu ah shacabka reer galmudug iyo kuwa gargaarsoorba waxaan ugu baaqahayaa in lala shaqeeyo dadka ka shaqaynaya waddada jiingadaha iyo waddooyinka iyo guryaha ku aadan ay ku imaan doonto in lala fududeeyo aan isku dhajin waddadu waxay u anfac u leedahay bulshada dhammaanteed asalaamu calaykum waraxmatullahi taala bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaanba waddadan inaan uga hambaliyayo waddadaani waa waddo isku xidhaysa dhex maraysa xaafadda garsoor waxay isku xidhaysaa waddada 5 star iyo waddada loo yaqaano waddada xamar oo cagaar weyne hormadha shacabka aan wakiilka ka nahayna waxaa leeyahay waddadan ilaalinba idinka rabtaa qayb walba aad joogtiin inaad ilaalisatiin waddadaanna waa waddo aan la kala xigin ma ahna maanta haddii liin dhiso inaad ilaalisiin biyo dambe biyihii xal ah iyo biyihii wasaqa iyo qashinka inaad ka aruursatiin sababtoo ah haddii liin dhiso oo hadhowti inka jajabaan laamigan sidii dib loo cusboonaysiiyo waa adkaa doontaa ilaalsada waddadan wasalaamu calaykum wabarakaatu dhammaan waa salaamantihiin
بعد السلام ودوين كان يا مشروع عام بلوضي وهرمرين ضدك يا ضلك اللي هو أديجيو وين لو وضع أركا إن أمضوا أي وحوض قبسن كرتو وين لو أركا إن مضوا وحتهاي وين لو أركا قف ميل ودور استاجي يقف متقنا شخصية إن وحب اللي تشوفينين منا وعصننا ضدك جريها دستيو وضدي هرب كل حد دستيو waxaad ogaataan shariicada islaamka baltaga inaad booli dhex degantihiin oo xaaraan haysataan oo gabadha kuugu dhalataa kuugu xiranta nin walba ogow wadooyinka la furaan leenahay ku ganacsiga xaaraanta ah laga daayo deganaanshaha xaaraanta ah laga daayo ummadda islaamka oo si xaqa oo sharaf leh oo dadka iyo deegaanka badan oo aan u hoggaansanto waana soo dhaweynaynaa annagu maadaama aanu nahay ama guddoomiyaasha xaafadaha ama bulshadii deegaanka ama mataqaanaa cid kasta oo arrintu ay taabanayso aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa barnaamijkaas waana ku gacansiinaa cid wax ka qabanayso